walaalayaal adduunyada intaynu joogno imtixaan baa inuu socdo ilaahay wuxuu inoo sheegayaa inuu inagu imtixaanayo nicmada lafteeda wuxuu alla ku siiyaa hantiya waa lagugu imtixaamaya waxa aad ka yeesho caafimaadka alla uu ku siiyey waa kugu imtixaamaya sida alla subxaanahu wa tacaala xanuunka iyo baahidaba kugu imtixaamaya sharafta iyo ciziga iyo magaca iyo maamuuska bulshada dhexdeeda aad ku leedahay waad ku imtixaaman tahay sida lidkeedaba aad ugu imtixaaman tahay xilalka iyo awoodaha alla subxaanahu wa tacaala khalqiga dhexdiisa uu ku siiyo waa imtixaan sida alla subxaanahu wa tacaala lidkeedaba alla uu kugu imtixaamay shaqada wanaagsan ee alla uu ku siiyo waa imtixaan sida camal la'aantuba ay imtixaanka u tahay wax kastoo kownka yaalla imtixaan buu inagu yahay waxa la inoo keenay waa liyabluwakum ayukum axsanu camala haddii xaaladaadu isku hagaagto ma aha inaad u malaysa inaadan imtixaanayn imtixaankii ugu weynaa baad ku sugan tahay haddii aad nicmo ku sugan tahay ma hadda alla waxa ka mida nicmada aad uga mahad celinayso inaad ficilla ku darto oo ficilla ilaahay aad uga mahad celiso alla waa jecel yahay ilaa ammaano carabka in laga xuso laa axada axaba ilayhi almadxu min allah walidaalika madaxa nafsa ammaanta ilaahay uu is ammaanayaa sharaf bay u tahay kamaal bay u tahay laakiin bini aadamka nuqsaan iyo ceeb bay ku tahay wuxuu kaloo alla uu jecel yahay hadduu hanti ku siiyo inaad waxa weeye maalka iyo hantidaa lagu siiyey inaad dhaqan geliso mahadnaqa waxa ka mida inaad wax ka bixiso dhibaatooyinka iyo howlaha taagan ka qayb qaadato cidda jilicsan ee tabaalaysan aad ku taageerto waa mahadnaqa alle subxaanahu wa tacaala hantida iyo nicmada uu ku siiyey aad uga mahad celinayso haddii alla uu magac ku siiyey bulshada dhexdeeda maqaam iyo maamuus aad ku leedahay inaad dadka u ergooto oo u shafeeco qaado oo aad wastaysto aad dadka ka wastayso meelaha ka xidhma waxa weeye waa mahadnaq camala oo aad waxa weeye samaynayso haddii ilaahay uu awood ku siiyo awooddaada inaad dadka wax ugu qabato hadduu aqoon alla ku siiyo ama maadi ama diini dadku u baahan yahay inaad dadka waxa weeye wax ka barto waxa weeye waa mahad celin camaliya oo dhaqangelina oo ilaahay subxaanahu wa tacaala aad u mahad celinayso alla subxaanahu wa tacaala nicmooyinkiis iyo waxa uu bixiyo deeqaha uu bixiyo alla subxaanahu wa tacaala ciduu doonuu siiyo ma aha ilaahay abwaabta adduunyada hadduu kuu furo shirkadahaagu najaxaan ganacsigaagu kobco hanti badani ku soo gasho macnaheedu maaha alla subxaanahu wa tacaala inuu ku jecel yahay ma aha ilaahay adduunyada miduu jecel yahay iyo midaanu jeclayn labadaba waa la siiyaa fircawn oo aynu naqaano gaalnimo halka uu ka gaadhay oo yidhi ana rabbukum lacla ilaahnimo sheegtay ayaynu ognahay kitaabka alle subxaanahu wa tacaala inuu leeyahay waxa weeye boqortooyada masar baa laysiiyey hoostaydana waxaa qulqulaya webiyaan yacni wuxuu tilmaamayaa nicmo adduunya in loo dhammeeyey xaalkiisuna sidaasuu ahaa nabiyullaahi muxamed oo isagana fadligiisa la wada garanayo oo bini aadamka ilaahay ugu jecel yahay ah makhluuqa alla uu abuurayna ugu fadli badan ama marka la soo dhoweeyo malaa'ig haddii layska daayo bini aadamka makhluuqa ugu fadli badana ilaahay uu ka xushay xataa ambiyada dhexdooda oo ilaahay risaaladiisa iyo nubuwanimadiisa uu ku soo khatimay ayaa waxaa dhacaysay sida axaadiista bukhaari iyo muslim ka buuxda inuu nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa weeye calooshiisa uu dhagax ku xidheeyey gaajo u gaajooday awgeed